الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ثم الصلاة على النبي أكرم مبعوث بخير في أفضل الأمم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى سينكم بلانسانين برنامج كيني أينكم مقعدني نحور كبواكته تضوات كان إن شاء الله تعالى بوقا أين سوق عدن دونه أهنا بوقي تين كانوا ملاين يوني هاي بوقي لحد برنامج كيني نحور كبواكته وحلو يقانا talk like TED بوقا waxa qoraa u dhashay wadanka Mareykanka oo magaciisa la yiraahdo Carmen Carlo I think waxaan maayay 2013 buu qoray sida buuga ciwaankiisa ka muuqata waxa uu magac daray talk like TED oo xagga ciwaanka hoosaadkan uu ka dhigayo the 9 public speaking secrets waxa ka warramaya markaa buuga ilaa 9 hab oo ay adeegsadeen dadkii loogu jeclaa lagu soo casuumay barnaamijkan talk like TED barnaamijkan TED runtii marka la joogo janibkan fagaara ka hadalka ama public speaking ka waa buuga aan ugu jecelahay buugaagta laga qoray saadaradeed baan idin la wadaagay sababtuna waxa weeyaan wuxuu soo gudbinayaa 9 hab oo ay fududahay qofku sida uu ku tajriibeen karo ku dabiqi karayo waa 9 hab oo fudud luqadda ku qoran yahay oo luqad yar basiida marka qaar wuxuu adeegsanayaa sawirro uu ku cadeynayo warbixinta uu ka hadlayo markaas waxaan isku day doonaa insha Allah taala marka inaan soo koobo maadaama yahay buug iska kooban waxa uu buuga u qaybiyay Carmen Carlo ilaa 3 qaybood saddexda qaybood wuxuu ugu magac daray qaybta koowaad wuxuu bixiyay emotional qaybta labaadna wuxuu bixiyay novel qaybta saddexaad ugu dambeysana wuxuu bixiyay memorable qaybta koowaad wuxuu ku soo gudbinay ilaa 3 cutub qaybta labaadna saas la mid ah qaybta saddexaadna saas la mid ah saasay markaa ku dhamaanayaan 9 hab marka waxaan isku day doonaa insha Allah taala 9 hab inaan idin la wadaago siyaro guud mara ama si guud mara ishaara iyo tilmaam ka bixinayo habka koowaad ama qaybta koowaad ee ugu magac daray emotional wuxuu ku soo gudbinayaa ilaa 3 hab marka habka koowaad uu ku soo gudbinayo wuxuu ka dhigay cutubka koowaad saadalada cutubka koowaad wuxuu ugu magac daray unleash the master within oo macnaheedu yahay wuxuu leeyahay mawduuca aad jeedinayso hadda doonaysid in qof dad inaad la hadashid mawduuca aad jeedinaysid uu leeyahay adiga dareen gooniyaha ku sameeyo jamasho gooniyaha ku lahaado dhadhan gooniya macna gooniyaha ku sameeyo adiga si gaar ah ku xadantay buu leeyahay wuxuu leeyahay dadka ku dhageysanaya in badan waxa kula jooga buu leeyahay emotional iskeeda caadifadahooda iyo la xawiyooda kula jooga sadaladeed wuxuu leeyahay haddii aanad adigu topic aad ka hadlayso dhadhan gooniya dareen gooniya aan ku sameynaynin way adag tahay buu leeyahay dadkuna inay waxa aad ka hadlayso si fudud ku qaataan wuxuu leeyahay topic aad ka hadlayso adiga dhadhan gooniya iyo macno gooniya iyo aqoon gooniya khaas ah aad u leedahay hal laga dareemo buu leeyahay wuxuu leeyahay hadii uu adiga si gaar ah naftaada u xadantaynayo oo naftaada u xadantaynayo dhadhan gooniya macno gooniya ku sameynayo waxa laga dareemayaa sida qaabka aad u jeedinaysid body language ka isticmaalaysid wajigaaga baa xuleeyay baa laga dareemayaa topic iyo macnaha adiga uu ku fadhiyo markaas dadkuna wuxuu leeyahay dadka aad la hadlaysaan si fudud ku dhageysan karayaan oo waxaad ka hadlayso si wanaagsan u weelan karayaan cutubka labaad ama habka labaad wuxuu ugu magac daray waxa uu leeyahay waxaad adeegsataa buu leeyahay sheekooyin waxa uu leeyahay in badan cutubka qaybtan baa waan uga dhigay dadka emotionaliskooda kula jooga sadaradeed markuu emotionaliskoodu baxo waa inaad haysataa habab aad ku soo celin karto emotionaliskooda wuxuu leeyahay marka sheeka jeedintu waxay ka mid tahay dadka emotionaliskooda waxyaabo lagu soo jeediyo waxa uu leeyahay ama dadka emotionaliskoodu inay inta badan adiga kula gaar noqdaan kula jiraan
saadaradeed weynad wax emotionalis adeegsata u leeyahay waa marka halku ka keenayo sheekooyin adeegso wuxuu soo gudbinaya falsafadu isticmaalay oo soo jeediyay Aristotle wuxuu leeyahay Aristotle wuxuu leeyahay wuxuu yiri qofka wax jeedinaya sidoo noqdo soo jeediyo wanaagsan waxay ku xiran tahay gur saddex shay kow qofkaas waa inuu lahaadaa buu yiri kow waa inuu qofkaas wuxuu ugu magac daray isagu ethos wuxuu magac daray ethos wuxuu leeyahay waa credibility-ga qofta mistaqiyada qofku haystay buu leeyahay credibility-gaas waxay ka tahay dadka dhageysanaya 10% qaabka labaad wuxuu ugu magac daray logos wuxuu leeyahay waa intuu qofkaas xog cusub dadka u adeegsado statistics iyo waxyaabo cusub information cusub soo bandhigo wuxuu leeyahay marka Carminka Aristotle baan leeyahay iyaduna waxay ka tahay 5% habka saddexaad uu sheegay Aristotle waxa weeyaan pathos wuxuu leeyahay pathos waxay ka tahay uu leeyahay waxa uu pathos horta macnaheedu waxa weeyaan emotionaliska dadka wuxuu leeyahay in badan emotionaliska dadku waxay ka tahay 5% saadad wuxuu leeyahay waad arkaysaa uu leeyahay emotionaliska dadka inay mar walba ka fara badan yihiin inta xogta cusub dhageysanayeen inta qofka credibility-ga adeegsanayeen marka wuxuu leeyahay qofka ku dadaalay inuu dadka emotion ahaan u kasbado ayaa ka wanaagsan buu leeyahay qofka xogta cusub u sheega ama si kale dadka credibility mustaqidooda dadkooda ku hanta iyo qiyam iyo inay leeyihiin qiimeyn ay bulshada ku dhaxleeyihiin qaybta saddexaad ama habka saddexaad uu ku sheegayo cutubkan qaybta koowaad wuxuu magac daray wuxuu leeyahay la wadaag buu leeyahay mawduucaad ka hadlaysa cid kale wuxuu magac daray weeyaan istijaabi wuxuu leeyahay way ka wanaagsan tahay buu leeyahay inaad stage-ka mawduuca aad diyaarsatay marka koowaad aad la tagto stage-ka ka hadlaysid iyo inaad istijaabisaa wuxuu leeyahay in marka istijaabiso waxaad ogaanaysaa meeshaad ku khaldanayd halkaad ku liidatay waxyaabihii ka dhina saadad wuxuu leeyahay mawduucaagan la wadaag cid kale oo istijaabi qaybta labaad wuxuu kaga waramayaa Carmen Carlo wuxuu ugu magac daray novel oo macnaheedu yahay mawduucaad ka hadlaysa ama waxaad ka hadlaysaa noqdo wax dadku xiiseynayaan oo dadka dareen gooniyo u sameeynaya oo dadku ay jeclaysanayaan ama dadku wax faa'iideynaya wuxuu leeyahay marka sideed marka ku noqon kartaa buu leeyahay sabab mawduuca uga dhigata mawduuc dadku ay xiiseynayaan wuxuu leeyahay waxa isticmaashaa saddexdan hab wuxuu leeyahay kow oo ugu magac daray cutubka koowaad ama cutubka afraad ee buugga wuxuu leeyahay dadka xog cusub la wadaag wax cusub la wadaag wala qofka ku dhageysanaya su'aal buu isweydiinaya ama hadal jeedin buu kugu soo celinaya oo ka oranayo teach me new wax cusub bar sadeed wuxuu leeyahay inaad ku dadaasho dadka inaad xog cusub u gudbiso ama xog cusub aad bartid habka lixaad habka shanaad baan leeyahay ama cutubka shanaad ee buugga oo kaga waramay Carmen Carlo wuxuu ugu magac daray wuxuu leeyahay adeegsigu leeyahay wax dadka ka yaabiya wuxuu soo qaadanaya salax soo qaadanaya Steve Jobs wuxuu leeyahay Steve Jobs markii uu soo saaray mobilka iPhone-ka uu yimid stage-ka wuxuu adeegsaday hadal jeedin yar aan wuxuu leeyahay waxaan idin sidaa saddex shay oo isku hal shay ah dadkii way yaabeen buu leeyahay dadkii dhageysanayay way yaabeen muxuu ka jeedaa saddex shay isku hal shay kadib markaa uu si tafaasiilay waxaan idin wadaa mobilkii iPad iyo iTunes-kii iyo wax kale oo sheegay ma xasuustay imika oo ku wada jira mobilka iPhone-ka sadeed wuxuu mar badan dadka u adeegsadeen wax ka yaabiyo dareenkooda soo celiya ama ay ogaadaan inay waxaan loo sheegay inay tahay wax surprise oo ay la yaabaan cutubka lixaad wuxuu kaga warramaya wuxuu leeyahay wuxuu magac daray ama habka lixaad wuxuu leeyahay dadka ka la yar kaftan oo ka yar farxiyo wax yar ka qosliya adeegsan leeyahay wuxuu leeyahay maskaxdeena way seexataa buu leeyahay oo yaani markay waxoogaa qofka dhageysto waxa yar gasha caajis buu leeyahay saadaradeed wuxuu leeyahay qaybteena conscious-ka say u soo kacdo maskaxda qofka say u soo kacdo waxyaabo joogina kaftana u adeegsan buu leeyahay
qaybta saddexaad ee kutubka wuxuu kaga warramayaa kaalminka hadlo wuxuu ugu magac daray memorable oo ay tahay macnaheedu xogta aad gudbinaysay sidee baa qofkaas xogta aad gudbinaysay uu xifdin karaya ama si yar fudud ugu weelayn karaya wuxuu leeyahay si qofka aad la hadlayso xogtaada weelayo adeegsa saddexdan hab si qofka ugu saacido in xogtaada weelayo kow oo markiiba uu xasuusto waxaad ka hadaysay wuxuu leeyahay kow 18 mirir ka badan hadlin ama wuxuu ugu magacday 18 minute rule wuxuu leeyahay 18 minute rule waa xeer ay ka sinaayeen bulay dadkii loogu jeclaa ama barnaamijka third bow asaas u ahaa inaan qofka hadlay 18 minute wax ka badan ka hadlinba wuxuu leeyahay waa saynis ku xoogaaday bulay imka 18 minute wax ka badan qofku haduu hadlo ma 18 mawduuc haduu ka bato 18 mirir in xogta intaas wixii ka sii dameeya aan qofku weelaan karayn inta hore uu si wanaagsan u weelaan karayo habka sideedaad uu leeyahay waxaad ku noqon kartaa effective public speaking ama public speaking secret kamidka waxa ugu magac daray waxa weeyaan waxa ugu magac daray wuxuu leeyahay waxa adeegstaa wax ka badan hal dareen wada buu leeyahay wuxuu leeyahay dadku had iyo goor waxay xoog saaraan buu leeyahay qaabka ay u hadlayaan iyo qaabka ay u jeedinayaan wuxuu leeyahay marar badan dadku waxa ay kaga weeleen badan yihiin waxay ishooda aragtay arkaan sadeed wuxuu leeyahay waxa adeegsataa wax ka badan hal dareen wada haddii darsi jeedinayso wuxuu leeyahay adeegso projective oo tus dadka waxaad ka hadlayso qaabka ay u shaqeeyaan iyo qaabka yihiin hadaad muxaadaro jeedinayso adeegso buu leeyahay waxyaabo tajriiba ama body language iskaaga buu adeegso buu leeyahay qaybta cutubka ugu dameeya habka sagaalaad ee u dameeyo uu ku soo gudbinay buuga oo wuxuu ugu magac daray wuxuu leeyahay nidaam ku gooniyo wax hadal buu leeyahay marka hadlaysi wuxuu leeyahay cidna ha jilin wuxuu leeyahay hadaad isku dayday inaad qof jishid waxyaabo fara badan baad qaribaysaa buu leeyahay sadeedeed ma noqon kartid buu leeyahay qofka exactly qofka noqon karibaysi laakiin waxa isku dayda nidaamkaaga adiga ku gooniyo lagu abuuray inaad u hadashid runtiina waa wax tajriiba loo gaado qofka qof qudwo ku ah waa iska jeclaan kartaa soo hadlay inaad adna u hadashid qaabka xogta isugu xirxiray inaad adna isugu xirxidid istiraatiijiyadu isticmaalay inaad isticmaashid laakiin qofka isagii deema noqon karay sidoo bartiisi sida uu hadla qaabku hadlo nooc uu waramo dadka suu wuxuu fahansiin uma fahansiin karaysi marka sadeedeed marar badanna wax laga yaabaa haddii istaadid adeegso qofka sidiisii kala cancelo jil in dad waxaad qaribaysaa ay ka badato waxaad hagaajinaysaa maxaan ka wadaa yani xog badan oo isla dadka la wadaag inay dadku raadaan waa ninkaas iska dhigdhigaya oo ay ka leexdaan boonik si wanaagsan ku dhigaysan marka stay your line buu leeyahay qaab ku gooniyo dadka ula hadal intaasaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo kale waa buug aad iyo aad u faa'iid badan xirfadaada fagaara hadaloo dee caruur iyo ciroolaba loo baahan yahay inuu kor u qaadan karaya oo marka qaar dee xaqaaga oo aad waxa uu xaqaaga aad leedahay waxaad gar u leedahay waxay kugu garab mari karayaan inaad waxaagii bayaamin kari weydid saadaradeed waa xirfad qof kasta u baahan yahay ما هم محاضرة كلية قف كوسو جدي إنه هذا الجدي ما حتى قاب كالعروض اللي حوش شيء يسوي قاب كهذا دتك ولا لها يقويس كحوش شيء يسوي قيب بكتة مركب دوت شو كتير محكمة شو كتير قاب كحوش شيء يسوي قيب بكتة هذا وحنقول ترى لنا خرسنا وبوكس كبسيطة أنت بوق حاجة كل مدة وحنت كي تجيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك